السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرنتي وناكسن أصحابي ميل كستو جوجتان كسو هذا هبين برنامج كنا هبين نمو هذا بقى هبين نمو 4 5 يسوق ليسو تاريخنا هو 6 ديسمبر سنة 2022 برنامج كعاو حندي كوسو قدين دونا ورركي سو كورليتن يتلو كلا مغنين وبرنامج كي سدحات وهو إن سوي لوجاشين معلوماتكي ورركي اللي كوسو قديني برنامج كي صباح نمو يكي قلب نمو لبضبا qodobada barnaamijkan idinkugu hayno waxaa ka mid ah tafaasiil iyo warar dheeraada oo ka soo baxay dagaalkii maanta ka dhacay Rafax ciidankii Xamaas ee godka ka soo baxay ee watay gantaalaha garabka laga gano oo nagta ka saaray Israa'iil haddaba Israa'iil caawa maxay qiranaysaa khasaaraha soo gaaray wararkii ugu dambeeyay siday wax u dhacaynayaan idin haya Netanyahu oo afka furtay oo qaylinaya حماسنا كو ايدينيا inay xabad joojinta jibinayaan hadaba wararkii ugu dambeeyay sheekada waan idin hayaa qaybta dambana waxaanu ku soo qaadan doonaa wada hadaladii ugu horeeyay tan iyo markii horay ay u heshiiyeen oo u burburtay xabadda ayay markale ku kala tageen Afghanistan iyo Pakistan hadaba wada hadaladaasi halka ay ka dhaceen iyo waxyaabaha la isku hayo ayay iyaduna qaybta dambe aanu barnaamijka ku faahfaahinayna maxaa kala haysta Pakistan iyo Afghanistan sheeko waalan ayaa ka jirta halkaas qodobadaas waa qodobada barnaamijkeena caawa aynu ku soo gudbinayno intaan ku jirno warar cusub oo soo kordha waan idin la socodsiin doonaa walaal wanaagsan asxaabay meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Gaza iyo xaaladdu siday tahay haddaba warbaahintu waxay aad u hadalhaysaa caawa dagaal maanta ka dhacay Rafax dhanka Israa'iil kaliya ayaa war daldalaysa Xamaas wali wax waro ka soo baxay ma jiro ilaa hadda waan raadinayay Xamaas wali kama jawaabin laakiin waa la filayaa inay war ka soo saari doonaan laakiin ilaa hadda caawa aan joogno nimanka hadlaya waana la soo weeraray dhulka laga soo baxay saddexay ahaayeen nagtaal iska saaray gantaalkii garabkana lagu soo riday waxa cabaada waa iyaga diyaarada helicopteriska meesha tagay warbaahintooda qaar adeegay dhaawacay soo qaadeen ayaga leewaan Xamaas way aamusanta waxa galabtoo dhan lala dirirayay diyaarada loo kiciyay waxay leeyihiin warbaahinta Israa'iil 3 wiil Libiya 200 meesha ku jireen 40 waa disheen 3 maanta soo baxday inta kale hadayba mid walba oo intaas oo shaqo qaban karo nimanku maxay ahayd meesha ku jira haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay khasaaraha warbaahinta Israa'iil ay tabinayaan haddaba telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay jirada leedaado Times of Israel waxay sheegtay 5 kamid ah ciidanka Israa'iil inay dhaawacmeen kadib markii gantaalka garabka laga gano lala helay gaarigii ay wateen Rafax haddaba jirada leedaado Times of Israel waxay sheegaysaa in wararkii hordhaca ahaa ee soo baxay ay sheegayeen in dagaalyahanada ka soo baxay godka ay isticmaaleen gantaalka garabka laga gano waxayna ku dhufteen gaari gaashaaman oo ay wateen ciidanka Israa'iiliyiinta deegaanka Rafax ilaa hadda khasaaraha waxa la sheegayaa 5 kamid ah ciidankaas inay dhaawacmeen 5 iyaga sheegtay xisaabtan waa isla naqaanaa marka xisaab sheegtaan adiga wixii aad ku dari karto adiga ku taala laakiin waxay qiranayaan gaariya la gubay waa la hulciyay waa la helay baash gaarigii nagta laga saaray kow haye maxaa kaloo marka halay waxa galoo la shan dhaawacantay waa tii barnaamijkan kii kooray iyaduna sheekadu markay cusbeed aanu ka hadalnay saddexay ahaayeen labaan dilnay mid godkii ku laabtay lahaayeen marka sheekadu marka la isku soo duubo halka marka waxa muuqanaya khasaaraha nimankan soo gaaray inuu ahaa mid aad u culus Israa'iil oo sheeganaysa shan naga dhaawacantay gaariyana la ka gubay oo waliba warbaahintu ay soo bandhigayso diyaaradahoodii oo maaragtay dhaawacyadii ay soo qaadeen isbitaalada la geynayo marka meesha dhibka waa lagu galaalay ninkii meesha ku xareysnaa ayaa soo baxay nagta ka saaray haddaba Netanyahu ayaa isaguna caawa war soo saaray ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa wuxuu yiri Xamaas waxay sii wadaa jabinta xabad joojinta la gaaray
haddaba ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu oo maxkamadda dembiyada caalamiga ay doondoonayso ayaa ku eedeeyay xarakada islaamiga ee xamaas inay jebinayso xabad joojinta ka dhaxaysa labada dhinac kadib markii maantay 5 ka mid ah ciidanka israa'iiliyiinta ay ku dhaawacmeen gantaal garabka laga ganay oo lala helay mid ka mid ah gawaarida gaashaaman oo marayay deegaanka rafax netanyahu waxa uu yidhi ma saamixi doono ciidankeenu ma saamixi doonaan wayna ka jawaabi doonaan falka dhacay marka wuxuu leeyahay gantaala garabka laga ganay askar badanana la ka dhaawacay taama ka jawaab marka xamaas ayada jibinaysa xabad joojinta nimanka meesha ku xaraysan fiiri nimanka waxay leeyihiin oo falanqeynaya nimanka godka ku xaraysan soo nimankii asagu uu lahaa isa soo dhiiba 40 ka dilay qaaraan qabtay kaanaan saanaha uu ka qaylinayso maahayn ninkii godka ku jiray aad dilaysay hadduu inta soo baxo ku dilay maxabad joojinaa la jibiyey soo tuu ayaga diiday ma yani waa kaa xoog badanaay haddii xabad joojinta adaa jibisa 5 askari aga dhaawacanta aniguna waa way ka jawaabi doonaa ciidankeenu leeyahay marka sheekadaasu halkaasay maraysaa xaalku halkaasuu taageen weliba ninka muxuu ahaa xogayaha guud ee qaramada midoobay isagana warbixin uu soo saaray wuxuu leeyahay ha loo ogolaado dadka reer Gaza inay markay rabaan ka bixi karaan Gaza markay rabaanna ku soo noqon karaan marka maxaa laga wadaa inay Gaza ka bixi karaan ku soo noqon karaan waxa laga wadaa leeyahay dadkii xanuunsanayay haddii xataa loo ogolaado inay baxaan waxay ka baqayaan inay soo noqon waayaan dadkii caafimaadka aaday haddii macbarka rafax la furo dhowr kun oo qof ayaa u baahan caafimaad dibadda ah haddii la qaado ma soo noqonayso Israa'iil ay dhahaysaa marka cabsi weyn arkaa iyaduna ay hay-aduhu ka qabaanaan leeyahay haddaba qadar xayisiisa kadib waxaan u gudbaynaa Afghanistan iyo Pakistan sheekadooda wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijyadeena waa barnaamijkii habeennimo waa barnaamijkii saddexaad maanta arbacaan idiin soo gudbinayno haddaba barnaamijka qaybtan ugu dambaysa waxaynu kaga hadlaynaa wada hadallo ayaa Sacuudigu isugu yeeray mar kale Afghanistan iyo Pakistan waa lagu kala dareeray warnooku isnacba nimanku waxa ka dhaxeeya maxay marka dhowr scenario ayay dadku wax ka sheegayaan waxay leeyihiin koox waxaa jirta Taliban la yiraahdo oo dhanka Pakistan ka dhisan oo iyadu xiriir la leh Taliban kan maamulaya Afghanistan qabaa'il waxaa jira halkan degan waa sida Soomaaliya iyo Ethiopia iyo Kenya oo kale Soomaalida Kenya oo kale Kenya Soomaaliya degan tahay Ethiopia way degan tahay Soomaaliya waa kan marka xadkana waa u dhaxeeyaa marka meeshaas marka buuq fara badan ka jira mar walba barka waxba ka dhaca dawladda Pakistan way duqeynaysaa halkan ay sameeysaa isku awood ma Pakistan awood badan oo nuclear haysta diyaarada casri haysta wax kasta laakiin awooddaada waxba ma lagu jeedo nimankan mintidu waa soo taageen go-oyso wata American isagoo arkayo ka carar meesha marka Pakistan bay u daahayaan nimankan marka ilaahay ma ka soo adeejiyo way nimankan marka meeshaas la isku helay Sacuudiga marka hadda waxa leeyahay wada hadaladii waa lagu kala tagay haddaba telefishinka Al Jazeera ayaa caawa qoraya warbixin uu leeyahay waxa fashilmay wada hadallo kale oo cusub oo marka dhex maray Afghaaniyiinta iyo Pakistaaniyiinta ay dhex maray wada hadalladaas mas'uuliyiin dhanka Pakistan iyo Afghanistan ka socotay ayaa arbacada maanta waxay sheegeen inay fashilmeen wada hadaladii nabadda ee labada dhinac u dhaxeeyay kuwaasoo la sheegay in marka la doonayay in lagu soo afjaro ismariwaaga isfahmiwaaga u dhaxeeya labada dal ee dariska ah ee ku wada yaala koonfurta Aasiya haddaba waxaa la sheegay wada hadalladan inay markaa ka dhacayeen oo lagu qabtay waddanka Saudi Arabia bilowgii toddobaadka waxaana la sheegay in wada hadalladaasu hadda ay yihiin kuwo markaa fashilmay iyadoo aad looga hadlayay iska horimaadyadii ugu dambeeyay ee ka dhacay dhanka xuduudda oo markaa labada dhinac ay isku farasaareen marka nimankan marka halkaasa marka wax ka qasan yihiin Hindiya meelay joogtaa waxay rabtaa labadan inay isku dhamaadaan Afghaaniyiinta iyo Pakistaaniyiinta waxay rabaan inay isku baaba'aan rabaan
marka meesha dhibaato fara badan marka halka ka taagan marka waa arki doonaa kullay wixii harikooda uu ku dhamaado Sacuudiga isku dayaya awal waxa isku soo dayay Turki qadar way ku fashilmeen waxba way heshiisiin waayeen Sacuudiga haddana yiri kaalaya Sacuudiga haddana waa u jeedaan oo fashilmaan leeyahay wada hadalkii haddaan markale dib loogu noqonayn haddana dawladda kale oo isa soo qadinto oo isu yeerta ayaynu arki doonaa barnaamijka caawa naga intaas xabay fakri aragti waa muhiim nabadgelyo